taariikhda islaamka ee hijriyada tirsiga bilaha islaamka ayaa haatan waxay maraysaa bishii saddexaad 1444 sano. bishan rabiicul awal ayaa waxaa la xusaa dhalashada nebi maxamed, nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee, say culimmadu awdiintu inoo sheegtay inuu dhashay 571dii. haddaba habeennimadii ay dhalatay bishan rabiicul awal ee bilmawluud ayaa masjidka alnuur waxaa laga bilaabay mawluudka iyo salliga nebi maxamed iyo dikrigiisa. waxaana haatan habeennimadan caawa ay bishu tahay rabiicul awal 6 ayaa waxa ay isugu yimaadeen masjidka alnuur ee magaaladan ceelbu culimaadudiinta xerta iyo weliba odayaasha iyo waxgarad kale oo fara badan ayaa kor waxay u qaadeen habeenkan caawa salliga iyo mawluudka nebi maxamed, nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee, waxayna ka soo jeedeen halkaasi wacdi diiniya iyo weliba siiradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waana kuwa kan iyadoo bulshadii markaasi ka soo qayb gashay munaasabadda wacdi diiniya iyo salliga kor u qaadaya nebi maxamed. وإذا اسمه والروح بزورة ومعنى فقالوا إلى مغرب من سدفة عامنة زرية وخصها الغريب مجيبا بأن تكون أمال للمصطفى في السماوات والأرض بحملها ولأنوار ذاتها وسبا كل صب له بالنصيب سبا دون جذبها من النبات حللا سندسيا وإن عدت ثمروات شجر الجاني وأن أعتقد بعمله كل دابة لقريش بصفة على الأصول العربية وغسرت العسرة والسلام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب والدواب والبحرية وتسد العوالم من السرور كساحمية كانت والرهبة الرهبانية ولها جاء بحمله كل خبير بعلى حسنه في المنام فقيل الله أنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية والسميد والدعم محمد محمد وعلى الآل ملهم كرماء وحيا كشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة الغراء أنت للرجل عطام أنت للمغرم شكور يا
عبدك الله مسكين يا أيوب القال جمال كبير في قبول خداني يا بشير يا نذير يا الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد حلقة وحين سونمي وينين دلشدي مصطفى صلوات الله والسلام عليه مركا مساجد وحين سونمي مساجد ومن عبادة الله تلقلي عبادتنا وحقوم مولسن وقن صدرست رسولك عليه الصلاة والسلام وأوير إلهي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا عنه واتقوا الله إن الله شديد العقاب وحي النبي الله محمد ويدين ليمي وويدين أمري لا إمادة وحي ويدين كنهيين كتقوا كديرات مركا بشن وحوية وربيع الأول وية ودرشة النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين تميلي جوغان بينما كانوا ملكستي أهضام أيهم به way احتفاليان way xafladeynayaan way isugu bishaaraynayaan way weyneynayaan naxariistaas nabigu naxariis buu ahaa alayhi salaatu wasalaam muuminiinta naxariis iyo bishaaro ayuu ahaa iyo nasri iyo gargaar haddana waxa weeye hadii uu noolaa iyo hadii uu wafaadayba wuxuu ahaa naxariis iyo nuur buu ahaa maxaa yeelay rasuulku isaga yiri xayaatii khayrun wa mamaatii khayrun markaan idin la joogo aan dhexdiin la joogo aan noonta noolhayna khayr bay idin tahay noloshaydu haddii aan wafaado aakhiraha idinka horguurana waxa weeye khayr bay idin tahay maxaa yeelay innii turaddu calaya biacmaalikum camalada aad samaynaysaan baa la igu soo bandhigayaa aakharo faman ra'aytu khayran falyaxmudullah ninkaa khayrku arko ilaahay baan ugu mahad celinayaa waman ra'aytu sharran ninkaan ku arko sharna ilaahay baan u baryayaa inuu ka sarfiyo oo ka celiyo sharka uu sameeyo wadada xun uu ku joogo ilaahay baan u baryay markastaba waxa weeye khayr nolosha nabiga kaleey salaatu noolaa iyo wafaadkiisuba khayr buu muuminiinta u hayo bishaaro ilaahayna wuxuu yiri inna arsalnaaka rahmatan lil alamin nabiyullaahi muhammad waxaan ugu diray bini aadamka ama islaamka ama ummad oo dhanba waxaan ugu diray naxariis marka rahmatul muhdaat buu ahaa nabiga kaleey salaatu wasalaam naxariis buu ahaa lagu hanuuno buu ahaa nabiga kaleey salaatu wasalaam marka sidaa way xafladda qaabkeedu hadana Sheekh Ahmed ba insha Allah wixii mawcida inoo jeedinaya ahmaduni munaasabatan balaaran inaan ku weynayno rasuulka kaleey salaatu wasalaam ihtifaalkiisi mawlidkiisi bishatan oo ah rabiul awwal oo bishii nabi maxamed u dhashay labiyo tobankeeda rabiul awwal labiyo tobankeeda يوم سنين أيام نبي شيء عليه الصلاة والسلام مركز سيدا دراد وحنا نسكن من النبي جينا وينينه وتعظيمه واحتفال وصمينه وإلهي نحرس إنه كقدرنا دليل كقوات والله قرآن كأيام لقى غاضمية واحتفال كبير النبي صلوات الله والسلام عليه إلهي ما يقولون وعقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل وحقد رأينا محمد بفضل الله فضل إلهي وبرحمة رحمة إلهي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فضل إلهي ورحمة إلهي كفرحة فضل وحا تفاصيلته يكفص الشيء العلم رحمتنا وحلو فسر النبي عليه الصلاة والسلام أيام لو فسر مركز سيدا دراد أيام وحنا كويا رحمت واتي آية ذكر إلهي كوي وما أرسلناك رحمة للعالمين عالمين تينا رحمة تهيموية وحكى لكم ما نصدرين مركز سيدا دراد دليل كوباد قرآن كأيام لا يغادرنيا واحتفال كمولد صلوات الله والسلام عليه آيات كلا إلهي باكوي
إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموه إني أنا معكم معين أيانهاي لئن أقمتم الصلاة هذا وقتانين وآتيتم الزكاة عدودتانين وآمنتم برسولي رسول شيء آخر ميسانين وعزرتموه أو إليسان وتعليم إسان آيات كلا أي إلهي تؤمنون بالله وتعزروه وتوقروه مركا أدلة كوبان آياتها قرآن كآية لغا قادنايا هي حديث النبي صلوات الله والسلام عليه إن أصحاب النبي صلوات الله والسلام عليه كانوا وحيا يوقروه كوي ويلي بهاي ويهابنوه كوهي بيستبه هاي كوي ويلي أي أصحاب النبي هاي وكهي بيستأي هاي أدلك وحلقة غاضنيا وكله نين أيا وحو عاسي جري بالإلهي عاسي جري بقول سنة أيون نكاس إلهي عاسي هاي ما ننتي دم نين بنو إسرائيل أبوها ما ننتي دم أيون انتي إن بني إسرائيل نين بنو إسرائيل أبوها ثم مات انت طبعا دواد انتي فألقوه في مزبلة كدافت أيه كتورين مركود انتي نين بقول سنة إلهي عاسي أيوها مركي بيتكيسي كدافت الكتورين فوح الله موسى إلى موسى نبي موسى يا إلهي وحيوبي عليه السلام كدافت كسار وكتوكا يا ليلي ninkaasu boqol sano ayuu ilaahay caasiyay waxayna bulshadu iminka isu diyaarinaysaa 12ka bisha balmawluud ee haatan aynu ku guda jirno munaasabadii weyneyd ee kor lagu qaadayay dhalashada nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa haatee ayaa bulshada reer ceelbu ay isu diyaarinayaan iyadoo markaasi ay dhammaan bulshada ku nool magaalada ceelbu ay u diyaar garoobayaan dhalashada nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa haatee oo la xusi doono 12ka rabiicul awal axmed ciise cashuur magaalada ceelbu ee gobolka Sanaag